يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم. fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayare ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqatay shaashadaha gaar ahaan social media iyadoo markii ugu horeysay ay quraan akhrinayso. fanaanada oo aad loogu yaqaanay heesaha ayaa waxa ay ka soo muuqatay baraha bulshada iyadoo oo fanaanada akhrinaysa quraanka kariimka codka ku luqeynaysa uu yahay cod aad u macaan. fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayare ayaa waxay caan ku tahay heesaha kala duwan, waxa kale oo ay timaha qaawisa marka ay masraxyada soo korayso, waxa kale oo ay jeegada u xiirataa si cajiib leh, waxaana inta badan ku faantaa in uu yahay sheene ama uu yahay Stella iyadu shakhsi ahaanteeda kaga duwan tahay fanaaniinta kale. fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayare ayaa maalmihii ugu dambeeyay iyo sanadadii ugu dambeeyay waxa ay showyo ku kala qabsanaysay daafaha dunida. fanaanada ayaa marka ay masraxyada soo fuusho ama showyada ay soo korto waxaa lagu yaqaanaa inay madaxa qaawisay oo ay sida timaheeda u jiran yihiin ay dadka tusto. waxay fanaanadu ballan qaaday in gebi ahaanba ay waxaasi joojin doonto oo qaawnida madaxeeda ay gebi ahaanba ka tanaasuli doonto oo ay caadi u heesi doonto. waxaa kaloo ay ballan qaaday in heesaha badan ee soo qaadana ay aad u yareyn doonto, walow aanay cadeynin in fanaanadu ay gebi ahaanba iskaga bixi doonto fanka. si kastaba haatee, fanaanada aadka loo jecel yahay ee Farxiyo Kabayare ayaa waxay ku jirtaa fanaaniinta ugu waaweyn Soomaalida kuwaas oo taageero kala duwan ay bulshada ka haysato. fanaanadan caanka ah ee Farxiyo Kabayare ayaa waxay soo gelisaa baraha YouTube-ka iyo social media muuqaalo kala duwan oo inta badan lagaga hadlo. waxaa ugu dambeeyay muuqaalkii ugu dambeeyay ee showga ku dhiganaysay dalka Germany, taas oo gebi ahaanba laga faafiyay propaganda oo ay iskugu jirtay in gebi ahaanba la isku dhexlaayay ama la isku dhex dagaalay gudaha showgeeda. waxaa kale oo jirtay in fanaanada la sheegay in gudaha showga ay ku qabsanaysay ee Germany ay khamri ku dhex cabtay, halkaasina uu fadaxad weyn ka soo wajahday. fanaanada oo aad uga caroonaysa ayaa waxay ka soo hadashay muuqaaladii ugu dambeeyay ee showgeedii Germany ee lagaga soo hadlay, waxaanay weerartay dadka YouTubers-ka oo ay ku sheegtay in ay dadka been ka iibinayaan oo ay ku doonayaan views. waxaa kaloo ay sheegtay in fanaanadu ay aad uga xun tahay in shakhsiyadeeda wax laga sheego. si kastaba haatee, fanaaniinta ayaa waxaa la soo wajahaa in xaalad mar kastaba taagan in ay noqoto mid gebi ahaanba run iyo been iskugu jirta. waxaa jira fanaaniin kale oo dhaleecayn iyo fadeexada loo geystay kuwaas oo baraha bulshada lagula wadaagay dadka, halkaas oo la soo geliyay muuqaalo kala duwan oo lagaga been abuuranayo fanka iyo fanaaniinta guud ahaanba. fanaanada ayaa hadda waxay u muuqataa in ay ka toobad keenayso waxyaabihii hore u soo maray, waxaanay u muuqataa in fanaanadu ay gebi ahaanba ay hadda doonayso in ay si tartiib ay fanka uga tanaashuso oo ay uga soo baxdo. waxaana la arkay iyadoo oo muuqaal quraan ah duubayso. subag lo-aa iyo ku cabsiday dhagiidu
Mamida,